الله وبركاته ونصوت السلام يا دمانتين ساكو waxaan ku soo wabaristay afar shay takoobaad waxaan ku soo wabaristay salaadiin ka timiday Hargeysa oo ku sugan Boorama oo ku baaqday in la hakiyo waxay u bixiyeen buug xirciis horta anagu buug baan soo bandhigaynaa cidna kumaan oran buug baa la soo bandhigay waxay ahayd narrative la sameeyay oo inamadeera gidib bulshada TikTokerska ee Zeylac baan qaadanaynaa laha ay sameeyeen marka horta odayada waxaan ka jaahil bixinaynaa adeero xeer kamida xeerarka ay leeyihiin beelaha dega Somaliland ayaa ay aqoonsatay hay'adda UNESCO sanad ka hor Hargeysa ayaa lagu soo bandhigay Djibouti waa lagu soo bandhigay Dirdhaban waa lagu soo bandhigay maantadan aan la hadlayno dawladda federaalka Itoobiya waxay sameynaysaa qorshe magaalada City Boorta City laga dhigay goob dalxiis si UNESCO lacagta ay siin doonto iyo waxyaabaha ay ku kabi doonto beesha ciise ay Itoobiya weelkeega ugu dhigato marka horta buug la soo bandhigay ma jiro buug la hakinaya laftigiisana ma jiro waa xaflad dadkii lahaa dhulkii ay lahaayeen deegaankoogii ay ku qabsanayaan dawladana ay ka codsadeen inay nabadgelyada sugaan laba waxaan ku soo wabaristay abwaandahagaas oo la wareysanayo wuxuu yiri samaroon dhuka way nala leeyihiin ciisana dhuka u dega hadalkaasi hadal yar ma hadalkaasi waxa weeyaan in narrative-kii ay gadabursigu sameeyeen ee ahayd ciisuhu Itoobiya iyo Djibouti buu ka soo qayaaday ciise Somalilandari ma jiro tii in ay ka dhaadhacday xataa dadkii abwaanada ee wax lagu tuhmay dahagaas isaga waxaan leeyahay in adeero anigu adil dhulka ma degani nin gadabursi la raadana dhulka ma degani dhulku awoogay iiga tagay ayaan deganahay neenina laygama maqlo naanana laylama maqlo dhulkaygu waa dhulka ugu amniga badan marka Somaliland la joogo waa dhulka cid kastana ay ku noolaan karto hadii idab loogu noolaanayo marka uu jooga iyo uu dega ma waan leeyahay weyn abtiyo aniga kula hadlaya ayaa dadka deegaanka kale marka barasho wanaagsan tasaddexaad in ku soo wabaristay waxa weeyaan durba waxa bilaamatay qadiyadii ahayd Somaliland halaga go'o marka qadiyadaasi waa qadiyadan hawshan oo dhan basalka ku haysa ee finance gareynaysa weeyaan waxani wax afar yar oo ciyaal oo dhalinyaro intay maalin iska kaceen oo ay ka fikireen meehin aqli ka weyn baa ka dambeeyay ugaaska laftigiisa waxaan ku tuhmayaa in uu ku jiro dadyooga u jooga Somaliland inay burburkeega u soo dhawaado halaga foojignaada markaa dhalinyarada markaasi waxay leeyihiin oo ay sameysteen hashtag la yiraahdo Boorama genocide waxaa markaa lagu taageeranayaa hay'ad international oo xuquuqul insaan u doodo wixii adduunka jiray oo dhan iyo dhammaan safiirada u fadhiya Soomaaliya ama Afrikada u fadhiya wadanada waaweyn waxa lagu soo qorayaa wala biirinayaa cadadka dadka dhintay iyo dadka dhaawaca xilli kasta wala biirinayaa okay maxaa narrative-kan maanta loo sameeyay narrative-kan waxa loo sameeyay si Britol loo yiraahdo las aanood maadaama ay go'day awdalna ha go'do si loo yiraahdo weeyaan waxa lagu qarinayaa waxa weeyay in waxa maanta socda aanan ahayn dawladintii hub soo qaadatay ama sanad militariinta meesha soo gelisay ay tir dadka waxa lagu sameeyay ma jirin waxa jiray laakiin dad iyagu waxa jiray laakiin fidnad loo dhanaa oo ugaas iyo sheekh iyo suldaan bala mahadiyay oo ahayd reer kale ha ku duulo tii markii ay dhici weydeen waxa la yiri tii markii ay noo dhici weyday Boorama khalkhal hangelino Britol markay dawladdu noo timaadana han oran genocide baan lagu sameeyay waxaad isweydiisaan hadaba qofka Zeylac sheeganaya muxuu Boorama u gubayaa isweydiye aqligaaga ilaa waxa uu sheeganaya haday tahay Zeylac wanaga inay lagu sabasabayn maayo Zeylac waa taa wanaga inay muxuu qofkaasi Zeylac u iman laayay wuxuu iman laayay Zeylac waxa ahayd wax lagu daba dhuumanayay hadafku waxa weeyaan Somaliland si guud bayna khalkhal loo galiyo si gaaranayna gobolka awdal loo goosto Itoobiya lagu xidhaayo meel kale lagu xidhaayo wata laftigeega Soomaaliya calanka Soomaaliya la isticmaalayna waa maqaar taana dib ha loo eego waxaan oo dhan maxay ka bilaabeen hadaba bal dib han isku xasuusino marka laga yimaado narrative-yada beenta waa dhowr
توجه الرسول حوين عيسى سمرون بعود الدجا وبين ديجان باشا عيسى عيلاد هاي يا ديجان باشا قد برسي عيلاد هاجرة سيد ديجان باشا عيسى أولاده نين إساقي نين عيسى أو اسكو مرميو ورنا ديجان كأنا لي محلو أركوي غير والبوي أنا ديجان كيس ماشوا قبل ما يماشوا كل ما نيك قد برسي ده ترى ديجان كقول كو قبل ما هالكو كل ما وحكي كل ما مخزنك وهردنيك عيسى هذا ترى وركن إساق عليك هاجي أده هدويه مش هاجي كرا marka horta beelaha gudbus waxaan leenahay ugaasidiina iyo shuyuukhdiina haniga caawiyaan inay identify gareeyaan deegaankiina meesha uu ka bilaamo iyo meesha uu ku dhamaado si maanta ka bacdi aw dhibaato kale ay noo yimin marka narrative-ka ugu horeysay beenta ummadda maskaxdooda wada gashay waxay ahayd ciise iyo gudbursi ayaa deegaan mida leh waa been sida ciise iyo isaaq deegaan mida ayna u lahayn ciise iyo gudbursina deegaan mida uma leh laakiin waxaa jira dad yow is dhalay oo iyaga kamida oo jiliba ah dhiig isla bixiya hadii dhibaato dhacdo aanan isdilin ciise wali uu ixtiraamaata oo isku la dhaxnool baa jira marka narrative-ka waxa loo sameeyna waa si magaalada Zeylac loo yiraahdo magaaladaasi waa magaalo Gadabursi Zeylac warigeed magaalo Gadabursi ma yahin deegaan ciise ahayd magaalo taariikhda ciise ay ku suntan tahay waxa maanta loo sheeganayo wax kala maaha waxa laga faa'iideysanayaa dadka yar ee ku nool ee ka soo haray xadaaradii magaalada ka jirtay هذا أنا جيبوتي وعندنا عيسى أنا هاي لكن Chinese بجيبوتي لا حمش بايلا تلياني بايلا سوداني بايلا عرب بايلا عيد كستا لا وحيلا لي نوح كلام ماشي والدولة مركي جرتنا قف كستا ماشي أي مناي تاسوا تا نارتيف كوهري نارتيف كلا وضوحها إن عيسوه وإثيوبيان يجيبوتيان عيسى سومالندر مجرو وحنارتيف كحوج ويا لنا وحي هيد in dadka ciise aan ilahayn dhaqanka dadka reer Soomaaliland ku nool Soomaaliland waa aragteen ma dariiq kastood marto board ba ku dhisan leeyahay Suldaan Hebel baa beeshiisa u yeeray Caaqil Hebel baa beeshiisa la hadlaya dhalinyarada xataa waxa la socdaa in la aqoon-yahanka reer Hebel ayaa maxaa la raahdaa shir qabsanayo halka ku shiray deegaanka ciise taa kama jirto waxayna uga jirin maanay sheegay ciise salaadiin male garaada male maxay male hal ugaas buulay ugaaskaasina wuxuu sameystaa ul hayayaal wax la raado commissioner oo deegaan walba u jooga marka horta dad qaylo badan oo fidnad badan ma harunta marka la sheego marka la arki waayo marka board magaca ciise ku qoran yahay marka la arki waayo shir jaraa'id oo dad ciise ay la soo fadhiyaan xataa anaga ka siyaasiga noo ee Soomaaliland ugu jira oo ka anshax duwan yahay kuwa kale wallahi marka la eego iyadoo faaniga hayn laga maanta Axmed Yaasiin baan ugu jira Axmed Yaasiin laga yaabo inuu soo fariisto dhacdada Axmed Yaasiin Turkiga buu la hadlay samaanta niman badan oo xukuumadda ku jira markiiba ay loobeen inay xildhibaano yihiin wasiirro yihiin maxay hadaan ay dad idil matalayaan marka narrative-ka baa samaysay narrative-kaas maskaxda dhex gashay taan waan ka daba imanayna aniga nila hadlayo mal khayr abaha iyo awogay ayigi asal guwa ma ka soo jeedna walina waan deganahay وانا ديجان كيجي رسميها وانا ديجان أنك جورن وانا ديجان أن ديجان هاي وديجان ما تمركنا جيبوتي كبحو شيد كأنسيتو أن لتجيون شيد كالكحرنا يوم كم مرنا ويدت كيجي جوجان وين لكن ضد كيجي ما دام يدقن هان كدوين سومالنا ما دام وجاس كلياته وتهلنا يو ما دام جفو حلوك لقيبسون إنه ديجان ندو أي دجال وكل حين نجفتو جلب عيسى أو سيستمر كيس عيسى ديجان كيس من point A إلى point Z ونبض بقول أحمر رأسه تاسع مركا كان سين الناراتيف كلاجيب صدق وأنا كحنا هني اللي جايبي وأنا كذا من دي ناراتيف صدحات بجرتي أو ترهدا مركز جرتين كزيل على أساسين وحلا زيل وإحنا نقول إن هاي أحمد جري وحوها هنين سمرانا سعد الدين وحوها هنين سمرانا شيخ زيلي وحوها هنين سمرانا قبلتين كواحد دسنين سمرانا أنت وبيننا كذا بيمانا قبلتين كعثمانيين تبع دسن عيسى مدسن عفر مدسن عندنا مدسن دولتي عثمانيين تا أي حضارات دي عثمانيين تا مسلمين تهيد أيادست شيخ زيلي موهين محايد هذين سمران سومالي موهين عيسى موهين أو ذي عرب أبوها أحمد جوري أحمد الغازي فتوح الحبشة تجا سواء إيجا بوجات كلا لقى قرا سواء إيجا وحوها هنين عربة محاسوا هذا الشيخ سعاد الدين تاريخ الصلاة قرنا الشيخ موهين محدنا الصومالية أنت أصلا شيخ محل يسكو سينا وحلا يسكو سينا سي لو سمران يود ديجانك مستمرومي ولا لا سي بور مو عيسوين نيول بيلها أنتي وسيه هكو كالصون هذا سيب ولي أنا كذا عيسان هاي أنا بس شخصيا وحنا من سنة هاي ديجان كقف كست إنه دي كرم ملامة سومال لا تاي نيك هبري ونسي جوجا ماشى وجوش الشيس إنه إيمان كره هالكن كعيسان إنه هالكاتي كرو قد برسي عيسان يسكب الدا وده دبر كسكو حقيقة يسكب الدا ناراتيف هذا الناراتيف كذا وصع ده واحد وحن أودي ده إنه بندقة أقونسي حار عيسى وحار كسو هرجي ده إسلام لماذا شن قرني كهراني أوجي وشو سويدية ورسين وضن ولانا
wuxuu gartay nolol inayna ka horreyn sinaan iyo cadaalad la helo awowgay wuxuu yiri war ciise wada ciise nina caaro ma dheero ninkii taa diidanuna ciise ma tiid baa la yiri waxaa la yiri taa sidaan u ilaalino maxaan sameynaa waxaa la yiri ka noo talinayaan kala yeelan dhukayaan kala yeelan xeer kala yaan kala yeelan waxaa la yiri dadka noo talinaya ugaasku haddii uu faasid noqdo maxaa la sameeyaa cimaamada laga tuurayaa baa la yiri laakiin si looga ilaaliyo inuu xukunka maroojisto waxaa la yiri ugaasku waa ducamaal ee gudiga iyo gandaha ayaa wax gooya ayaa la yiri 5 qarni ka hor wuxuu awowgay isweydiiyay 5 qarni ka hor awowgay wuxuu isweydiiyay qof Soomaaliyeed iyo qof Ciise hadii isdilaan maxaa la sameeyaa ciise beeli male wax la dhaho argoosi male nin ciise hadaa ku dhagoroodid magtiisaad bixin nabadnood ugu noolaanaysa ciise waxay isweydiiyeen arrimaha maanta laga sheekeynayo kufsiga hadii la sameeyo maxaan kaga jawaabnaa waxaad ogaatiin marka indhaha maanta ha ku eegin 5 qarni ka hor maxaa ciqaabta ugu kulli qof lagu sameyn karay maxay ahayd waxay tatakoor kala dhahdo ee qofka nabaro loo yeelayd tii ugu darnayd baa lagu sameeyay 5 qarni ka hor aniga awowgay halkaas uu joogay maantana awowgay magaalo jooga oo mal khair baad maanta ciise laakiin adu 5 qarni ka hor daa maantadan dhow hadii ilmo yar laga kufsado maxaa xeerkaaga yaala maantadan deegaankaagu ma mideysay maantadan ugaaskaaga hadalkiisu muqaddas muu yahay anaka maanta ugaaskoo duura ciise dagaalka gala istawu baan oranayna wala wada galaya ciise fadhiista haduu raadana wala wada fadhiisanaya adigu ma tahay waa may maalinta ugaasku sida inanka yar uu doonayo uu hadlo waa ugaas maalinta uu hadal oday weyn yiraahdana waa ciyaal suuq oo la dilaya marka narrative-yada oo dhan waxa loo sameynayo ee taariikhda beenta loo sameynayo ee wax loo buunbuuninayo waxa kaliya waxa weeyaan ciisaha Soomaaliland jooga ee abaaraha iyo darxumadu ay hayso ee 34 sanadood aan hadlayn in la ilaahdo deegaanka ha laga sifeeyo taasna dhici mayso shalay tolo wacyi siyaasadeed anagu ma lahayn waayo deegaanku deegaan Soomaaliyeed buu ku dhex yaalaa wax dhibaato oo nagu hay ma jiro laakiin maantadan la hadlayo saamigii aan ku lahayn dawladda Soomaaliland ayaan raadsanaynaa Soomaaliland narrative-ka kale ee jiray laga dhaadhiciyo waxa weeyaan ciise cadow buu ku yahay jiritaanka Soomaaliland taasina waa been ciise haduu wadankan dhiigiisa u shubin wadankan habeen kaliya taa la xasuuqi lahaa xilli ay Soomaali oo dhan dhinac ka martay wadankan ciise un baa wadankan la jiray waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliland lagu dhisay Djibouti baa laga keenay deegaankeeda dakaasa laga keenay waliga ma jiro nin ciise oo qori u soo qaatay taariikhda Soomaaliland lama arag nin ciise oo dhisaami leeyma siina wadanku habaabaan ma jiro ninka banka gariyaad saa u jiifa maanta wuxuu leeyahay ilaahu wadanka nabad baan ku haysanaa noo barwaaqay ayuu leeyahay malaha hadii waxa la siin waayo waxa kala sameyn arinta gadabuursihan u soo noqdo gadabuursi waxay leeyihiin qaab ay wadan iyagu ay u yihiin qaabkaasina wuxuu ku dhisan yahay baad hadii waxa aan doonayo leeysiyo wadani baana hadii wax aan doonayo leeysin waayna wadani meehi awdal state baan ho Soomaaliyan ku xidhanay ama Ethiopian ku xidhanay weeyaan sheekadu waana ta keentay deegaan ahaan anaga uga deegaan badan in intaas wasiir la siiyo intaas xildhibaan la siiyo intaas agaasimo la siiyo intaas wax la siiyo intaas hawlad loogu qabto meeshooda nimankan isaaq cabsida ugu weyn ee haysata waxa weeyaan in dawladda Soomaaliland ay baabado Soomaaliland oo ay baabado ilaahina horta ma baabiyo mana baabiyo doonto haday taas cabsinigu hayso macna qofka dawlad dhiska garanaya wuxuu garanaya dawladdu xilliga ay baabaysay xilliga kale anu shakhsiyan markaan Soomaaliland eego dawlad baabaysa ma laakiin waa dawlad cadaalad looga baahan yahay dawlad cadaalad aan lahayn weeyaan oo dadka qaar u adeegayso dadkii kalena dulmayso weeyaan runta marka la sheego anaga horta saamigeeyay maanta ku soo jeednaa waana soo doonan doonaa marka ninka gadabuursi wuxuu leeyahay maanta waan duday waxisi wasiir baa la siinaya maanta waan hinaasay waxisi waa la siinaya arrimaha Facebook la soo furisanay laha anagu dawladda sodoh waan kana maxaa loo lahaa waa falsafad dheer weeyaan sodohda waxa weeyaan sodohda hadalkeyga waa la maqlaa sodohda mukurkeyga waa la maqlaa sodohda xataa haday reerka duduminayso waa hooyo la dhaada Sooma marka horta muwaadinimada ayaan dib u difaan gareynaa muwaadinimo jiida Soomaaliland looga baahan yahay waana laga wada shaqeyn doonaa ugu dambeyn waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan dadyoga qadiyadan taageeraya ama qadiyadan daneynaya waxaan arkay ninkii Umar Seer biyo xalay toole nin u jawaabayo oo yiri buuga halaba joojiyo waxa loogu daneynaa qof kaliyaad Umarow adu arinka habariyun iska ah oo inaadeero way waxaad ka fahmayso ma jirto deegaanka ciisaha mana garan kareysid mana baarin baadnoon ku oranaya dhalinyaro badan oo kale isaaq iyaguna waxa jirta leh Soomaaliland intii baabi lahayd
ciisaha laga joojiyo ciisaha laga joojin maayo in adeero sidaad adigu ugu qabsato Hargeysa iyo deegaankaaga intiisa kale ayaa loogu qabsanayaa reer hadduu reer kale jiritaankiisa ka dhimanayna reerkaas u baahan inuu soo gusdaweeyo maaha Soomaaliland in cagaha loo qabto maaha reer kale in cagaha loo qabto ugu dambeyn walaalihiina gudub bursi waxaan leeyahay walaalnimo hore naga dhaxaysay dhibaato aan ku naguma hayno deegaanka maanta aan joogno waa nabad waad ku noolaan kartaa maalgashi waad ku samaysan kartaa maaha meel lagu diidayo maaha meel laga xigsanayo laakiin nin dhulkiisa looguma booteeyo san anigu buurama kugu daba fadhiyo ee diilaa igu daba fadhiisan haddii taasi dhici weydana waxa dhacaysa in xadka laga xidho marka salaadiinta iyo ugaasyada iyo shuyuukhda meesha joogta waxaan leeyahay cilmigii aad sheegi jirteen maanta haniga dhabahaado waxna buurama ha gubina waxna ubadka iska dilina waxna dhulka iska baabiinina buurama guryaha ka dhisan waxa dhisatay islaam bangiya dariiq ku iibinaysa oday kuuliyaha oday bad maray waxa soo dhan guryahooda waxaad gubaysiin dhulka ha iska duduminina dawladuna dadka uma baahna iyaga dadku dawladdu u baahan haddii aad isleedihiin dawladnimada ayaan saa ku baabiinayna kaliya idinka baabii doona waxaa kaloo jira niman harawaniga la soo hadlaya lafa ciisaniga la soo hadlaya deegaanada Itoobiya niga la soo hadlaya oo nilaanaga hubni haynanile kuwaasi buritoole markay dhulkiina gubaan iyagu deegaankooda ku noqon doonaan sida ciisahana ma tiidin oo dhulka aad kala leedihiin ninka maanta buurama ay ka gubanayso adigu buurama badbaadso